بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan ku jiray xog ururin tani saaka waxaan raadinay xogtii u dambeysay wiilkii Xasan Daahir Aweys ee shalay gantaal ay ku dhufteen dowladda Mareykanka gobolka Shabeellaha Hoose markuu qorayso waxaan rabaa inaan raali galeen aan siiyo shacabweynihii Soomaaliyeed oo aad iyo aad ugu xumaaday taasiidii aan u diray Xasan Daahir Aweys oo aan ugu taasiyay dhimashadii wiilkiisii waa ka raali galeen shacabkaas waan ku fududaaday waan idinkaga cudur daaranayaa markaan ogaaday sababta wiilka loo dilay ama u dhintay daraadeed arrintaas ayada raali ka ahaada shacab fara badan baa eedeeyay laakiin shacabku meel cid la igu eedeynayeen aniga wiilkan wuxuu ahaa maanan ogeyn shacabkana maysan ogeyn wuxuu wiilkan ahaa hadda baan ana idin sii sheegay insha Allah taala qaabka loo dilay iyo sababta loo dilay wiilkaas runtii Xasan Daahir Aweys baa dhalay dhakhtar buu ahaa dhakhtar ayuu ahaa waa tii sawiradiis meelaha la soo dhigay markuu jaamacadaha kolba waa dhakhaatiirtan oo magaalada Muqdisho waxa yani kuwan ka galan jibiyay waa dhakhtarna adduunka laguma tilmaami karo waa waxay u dhigmaan yani muxuu ahaa auxiliary nurse ama yani auxiliary nurse bay u dhigmaan hadda dhakhtar lama dhigi karo qof Soomaaliya markii muxuu ahaa caafimaad ka soo bartay laguma tilmaami karo inta badan doctor buuxo lama dhigi karo inta badan in yaro kooban mooyee in yaro fara ku tiris ah marka runtii wiilkaas dhakhtar buu ahaa wiilkaas gantaalka ku dhacay kaligiis meesha kuma dhimanine rag kala meesha ku dhintay haddaba dadkaas yay ahaayeen dadkaas iyo wiilkan maxaa isu geeyey horta Xasan Daahir Aweys talahan waxaan soo jeedin lahaa telefoonka in laga qaado la xiro dowladdan Xasan Sheekh Maxamuud haday argagixisay la dagaalamayso dowladdan Xasan Sheekh Maxamuud dhimashada waagii hore dowladii hore ama maamulkii ama dowladii ka horeysay dadka noocan oo kale inta badan ma dhiman jirin xasuub wadareedkan maysan dhici jirin dowladdan Xasan waxay la timid markay dhalatay ayaa weeray la timid shabaabkii baa xoogaystay meel walbo shabaabkii maantayto awood bay ku yeesheen waad aragtay maanta wixii beledweyne ka dhacay shabaab oo intaan tiridiis la ego hadduu ilaahay ku idmahayo oo dowlatus ciidan intaan la eg samaynayo horey looma arkin marka runtii dowladda tan dowlad ma ahan Xasan Daahir Aweys waxaan soo jeedin lahaa in la xiro odag in telefoonka laga qaado xabsi in loo dhaadhiciyo wiilkiisii waxaa lala dilay ninkii 3 milyan ee madaxiisa saarneed Cabdullaahi Yara ama Cabdullaahi Nadiir la dhihi jiray Cabdullaahi Yara ninkii la dhihi jiray ee beesha direed u dhashay ayuu la dhintay wiilku cruiskii ninkaas lagu dhuftay baa lagu dhuftay ninkaas buu la socday maxaa isu keenay su'aasha waxaa isu keenay Cabdullaahi gaan shalay la dilay ama gantaalka lagu dhuftay Cabdullaahi gaas Xasan Daahir Aweys seedigiisii buu ahaa maama Xasan Daahir Aweys la dhalatay ayaa waxaa qabay ninkan hadduu ilaahay ku idmahayo Cabdullaahi Nadiirkan oo asagana dumaal ahaan ku guursaday maamadaas ayada ah walaalkiisa ka weyn oo argagixisa ahaa baa qaba jiray walaalkiisa ka weyn Cabdullaahi gaan beesha direed u dhashay ee shalay cruiska lagu dhuftay ee shalay gantaalka ku dhacay oo in Xasan Daahir Aweys la dhintay ayaa waxaa dumaalay doqdan oo qaba jiray walaalkiisii Xasan Daahir Aweys la dhalatay walaashiisii ayuu qabay wiilka markii wiil argagixiso ahaa Xasan uu ku ogaa wiilkiisa inuu argagixisiya is-oysintan iyo beentan uu ummadda horta intuu soo fariistay ilintan meesha uu ka daadinayo ilan dameereedan waxba kama jiro
wuu ogaa wiilkiisa inuu argagixiso ahaa wuuna ku ogaa asagaaba u diray asagaaba taliyo tusaale u ahaa asagaaba meesha ku ogaa wiilkiisa inuu shabaab u diro ummadda Soomaaliyeed wax ka dhibaateeyo wuxuu dili karo dilo wuxuu yani muxuu ahaa marin habaabin karo inuu marin habaabiyo arrin Xasan Daahir Aweys iyo wiilkiisa isku ogaayeen bay ahayd wax maantayto ummadda Soomaaliyeed يعني waxa maanta uu yani oohintan iyo dad fara badan oo ka taasiyeeyo qalbiga Allah ku qaboojiyo dad ani aad u jecel runtii saaxiib asxaabteyda ahaayo reer nabad in loo ahaayo waxaan arkay Xasan Daahir Aweys uu taasiinay waxaan u soo jeedin lahaa arintaas ayada ka noqdo aniga waa ka noqday taasiyadii aan u taasiyay Xasan Daahir Aweys maxaa yeelay Xasan wiilkiisi in la dilay wuu ogaa wiilkiisi in la dilayo wuu ogaa sababtoo ah asaga shabaab u diray asaga ku ilhaamiyay asaga yiri orad mujaahidiintaas aad asaga yiri asaga ummadanka Xasan Daahir Aweys ka aaminsan asaga ka aaminsan dhamaanteen inaan anaka muslim aan ahay buu aaminsan yahay sida qulubtiisa ku jirto waa sida afkiisa soo dafay waa sida ugu hadlay waa geeridii naxdinta lahayd generaal Farxaan Qaroole ilaahay ummadiisii oo dhan u wada taasiyeysay jees-jeeskii ugu hadlay ayadoo waliba uu helay jawaabta shalay uu helay Xasan Daahir Aweys ay ahayd mid min Allah ka timid Allah xaqiisa ka timid waa jawaab rabbaani bay ahayd waa jawaab official bay ahayd ilaahay soo diray bay ahayd in wiilkiisi la beegsado gintaal lagu dhufto oo ka dhinto oo waliba ayadoo ka soo wareeganin 7 saacadood waxaan dhamayn dhimashadii geeridii naxdinta lahayd walaalkeena Farxaan Qaroole tolka qalbigay ku habaareen habeen hore reer Xaaji Saleemaan way habaareen markii oday ciroola ah waayeel ah oo diin sheegto ummadda Ilaahay barakiciyay Soomaali wixii ku dhacay qaraxyada maanta beledweyne ka dhacay dadka maanta ku dhintay kuwa hadda kadib dhiman doono dhammaantoodii aasaasiyaashii al-shabaab aasaasiyaashii argagixisadu waxay ku leeyihiin dunuubtaas ayada qeybtoodii bay leeyihiin وانا يعني محوها إلهي آيديسي قرآن كريم كاوا قف كستو إفكان لغدلو هابيلي قابيل نيكا قابيل ليرادو نيكا هابيل ليرادو أو قابيل دلي يا نيكي الميه النبي أدمتك واحد دلي دنب كستو ذنوب كستو دل كستو الدنيا كدعضو قيبو كلها إلهي بالقرآن كسكو الشيء حسن يروبو يوحي لها المالو iyo indhaade iyo wax allaale wixii argagixisada ku jiray qof walbo dhinto dadkii saaka la laayay ee beledweyne ku dhamaaday dambigii meesha ayada ah dunuubtaas ayada waxbay ku leeyihiin ilaahay baa yiri midaan anaka dhahnay ma ahan min ajli dhalika katabna ala bani israa'iila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an فكأنما قتل الناس جميعا فرحان قروله ذنبكيس waxbay ku leeyihiin kuwii beledweyne lagu laayay hargaha saamaha meel walba qof bini aadam ah ee Soomaali argagixisay ay ku disho sagaalkii xabadood aniga la igu dhuftay dhibaatadii aniga aan maray waxbay ku leeyihiin dunuubtaas ayaga iska meel ay ugu harto hawa yaraatay ma jirto wax walba hasabay kama harayso bifan ilaahay baa quraankiisa ku sheegay qarax kasto kii bari dhaco Xasan Daahir Aweys ha ogaado ha kuna bishaareysto maalinkii mawdka Ilaahay u keeno waa la weydiin doona waxaan wax asaga jideeyay bay ahayd asaga barnaamijkan asaga iftooday ilaa hadeertaana Ilaahay toobad yani muxuu ahaa la yaqaano ummadda mujtamaca intuu soo hor istaago hatta hadduu dhihi lahaa war waxaan dambigan anaa keenay halay qisaaso sidaas ku haboonaan lahayd ya dambigu sidiisa markaad dad disho waxaa la rabaa qof baad dishay qofkaad disho magtiisii ehelkiisii baa kuu cafin karo ama inaad mag dhiibto mana hal qof baad dishay for example halle ka soo qaad qofkaas asaga ahaa dishay magtiisii waxaa waaye waladul qofkii ehel ahaan u xigo ayaa mas-uul ka ah inuu kuu cafiyo ama inuu ku qisaasto Soomaali kulligeed waxay raali ka tahay Xasan Daahir Aweys iyo Mukhtaar Roobow iyo wixii la halmaalo in la qisaaso
يا عفيي توبدان إلهي مدو أتوبت كاني وقار كان واي لكن ديق دادك لقلي كما توبت كاني كران دادك إهل كودي بان نول عرور تودي بان نول هويوين كودي بان نول أبياش كودي بان نول ما عفينين إدنا في السمالة أدي ما إيه عفينا يا ديق يقفك بني آدم كأسيا ويحيس حقه له أسيقا حقه له وأسيقا ليه هيوا حقوق أسيقا ليه سيئوا يا هذا نيوكل ونوله شغالها بود بالي يقول فتي أبيه ما يعرفين كره وما عارفين كره أبيه ما عارفين كره اللي أنا بنولجو تصالح مركز ملايين كالصومالية ما يعني قالوا لا أو عرورتي ما أنت بلدوين الأولى هي بالمجيدي ما أنت للاي شعبك ما أنت للاي تذكر نوع عصاكرة كلية ما أنت مهمة وحيتها إن الواقع ساسوي حسن ظاهر يرجع له الماله إنتيك الاستاجيو أو القصاصه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن يعني محوها إنتيك أزلقيو ما قصاص بالصومالية تسكروا عيل كمود الصومال كوبا بيكرو هاوي راكتمالها حسن مرك أمد بينتا أو شيغن ويلكا أرجع حسدا أودري أرجع حسنا أداكو سلو كلا وها ماشان كجيرو حسن داير أويس يوم ما هتصلين ولا الشقيق كان عايش يا ما هتصلين يحصل وضع الشقيان وانا قرابو وانا وحي اسكوين هبر قدر عير خير عيوب اسكوين وقرابو اهل واي يا ودد اهل اسحقوا يا جاس وهالله وحا لغا يابا نخشد اللي قد لي فرحان قروا انو اوديغا دجي اوديغا waa military waay waa commandos waay ruushka waxa lagu soo baray dawladii kacaankii barakeysanaa buu kamid ah Xasan Daahir waad ogtiin نخشد اللي قد لي قف وح أجا وإكا مركات فيرسو يعني قف مكر السمايي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله صوته صدق يوصل قدونتي صدق يوصل لعبة مصائبته صدق دربوبة يسوق سوكلا ورجسي صدق جنتال قول دعي صدق أويي صدق يعني محوها قلوبتي سي ودا وعنتي صدق أغلى يسوق الدري صدق أقربودي صدق أول ولي تضباتي لوسع والمدمين حقيقة يا تضباتي لوسع والميسن نمين مركا حسن طاهر أويس وذيكي وايلكاها وحواي عقوبة كود علي ضربابة وحاد مودة ديلك فرحان قروا لين وحكا مليقي ديلك ماشي لقى سوى مليقي وايدين شاقي دبك الشري واردين شاقي فرحان والله الشري ترهد كليب كيجي برتي يوتيوب برنامج والبيوتيوب كيجا كيري دونتان جروب قناة ميديا هل كاسي كوجينا وان كقال فرحان قروا رميسي وفا بلاسن والله الشري يعني محاها ولا فريستي وحاكا فريستي أفر نمبان دي شيء وإن دعد العدالة مع الصلاة إيوه وركيكا لإي شيء ورياه مع الصلاة دي العدالة مع الصلاة العدالة مع الصلاة إن دعد إيوه ورنينكا لا جري الشيء ورياه شاغ نينكا كلا جري نينكا لا جري أفر نمبا أرنتان نينكان كيس الدياريي اسكو دبردي حبايي كرة تلقلي فرحان إني ديلان بكو تلقلين فرحان إني ديلان بكو تلقلين كاميرا يكون سو مقنطان كاميرا حقا يسوي جفتان السلام عليكم. بدوميها جود دفاع قرب عض سوق بصري لايف كا برامج الشرقلي والدفاع قرب كل شرقلي السود وجود دومية نحكي قدام بيسين حسن داهر أويس وشلي وممكن ضد أنا كجر وانكت عسيري لكن واكن نغضي أرنج عيدا هاي شعب قلبه لنا وعمره عبد الله يرمي كبير هذا للدلي إن حسن داهر أويس ولا شيء سيبون الضباء من كل يرادو عبد الله يرى أو شيء يدلي ودمانها كورسري واجي هون ولا كي سرقة دلي عبد الله يرى عبد الله نذير قوانين دلب وها مركا حسن داير أويس إن
markii qodbooyinkiisii dib aad u daawato waad aragtay jees-jeeska iyo qosolka iyo yani qaabku hadlayo waxaad moodaa naqshada farxaan lagu dilay mid qabiil ahaan oo dhan ay ka soo wada inay ka wada timid baad moodaa macnaha markaad fiiriso oo beeshaan oo ay sanad ka dhashay jifada hoose inay ku wada midaysan yihiin in jiraa farxaan qarol nafta la dhaafso ku soo dhow aad baan ku salaamayaa adiga iyo shacbiga Soomaaliyeed ee sharafta leh ee la daawanayo bartan gurmad qaran laga daawanayo fadlan waxaan ka codsanayaa inaad share gareysaan aan waa share gareeyay biidnillaahi albaari horta qof kasta wuxuu ka shaqeysto oo ummadda uga shaqeeyo oo abuurto ama beer kasta oo abuurto ayuu gurtaa hogaamiyihii ururka asaasihii ururka argagixisada ee al-shabaab ururka argagixisada al-ittixaad islaamiyiintii xasan daahir aweys horta markii ugu horeysay muddo 40 sano ama 60 sano oo hawshan camalkan khawaarijta ah ee dalka iyo diintaba duulaanka ku ah oo waday waa marka ugu horeysay uu xanuun asaga shakhsiyan ama qoyskiisa uu soo gaaro waxaan leenahay saasa bulsho badan oo Soomaali ah oo 10 milyan oo 9 milyan ah ayaa adigu waxaad habeen kasta aad samayso iyo afkaar adigu aad keentay la ooyay qaarkood baa u dhaawacmay qaarkood baa u gablamay kuwa aabayaashood ku waayay sida aad wiilkaaga u jeclayd oo aad wax u bartay oo diktoorka uga dhigtay diktooro waliba adiga nolol ka hooseyso wax lagu soo baray oo hil meejis ah iyo jaad loo gaday wax lagu soo baray ayaad cuntay oo aad ka hoyso gablamise kuwa sila wax lagu soo baray oo tababar loo waday oo dibadda deeq waxbarasho u socday ayaad hargaha iyo saamaha ku cuntay dhalinyaro inay waxbarato rabtay oo dalka mustaqbalkiisa inay ahaato rabtay oo dhaqaatiirtii biri ah oo madaxdii biri ah ayaa dab ku shubtay intaad maskaxda ka qaladay oo aad fikirkii xasan albanna ee masar laga keenay ee khawaarijta aad ka dhadhacsisay kulaysay imisaa hooyo maanta gablan ah oo adigu aad gablamisay imisaa gabar asay wadato oo Soomaaliyeed oo adigu asayda u saartay imisaa carruur agoon ah oo maanta Soomaaliyeed oo guryahooda maanta aan waalidna haysan cid wax u qabatan aan haysan oo cid la dareemay imisaa aabayaal adiga kula mid ah wiilashooda waxay ku dhinteen aan garanay maanta xasan daahir aweysow inaad horta xanuunsato lisma gaarin wali afar xaas baad qabtaa afartaba waddanka Masar bay ku degan yihiin ilmaha waxbarasho ay ku jiraan afar xaas hal cunug Soomaaliya kana ka joogay kuwa kale haddaad ku dhashay laakiin anagu habeen iyo maalin baan ooyay ninkan halkan ka hadlaya xabad baa ku taalo aniga inta ka hadlayna xabad baa ku taalo waan dhaawacmay ninkan naftiisa halis baad gelis qoysas fara badan oo Soomaaliya halis baad gelis laakiin mucjizo ummadda ku dhax nool baa tahay wiilkaaga khawaarij buu ahaa mujrim buu ahaa maalintaas in la dilaa qornayd adigana haddii sharci jirin sharciga lagu hor keeno oo adiga iyo roowlida qasaasay diintu qabtaan waxaan rabaa inaan halkan kaga faa'iideysto shacbiga Soomaaliyeed ee sharafta leh arrinkii iyo dilkii inaan ta'kiidiyaan rabaa hadalka gudoomiyaha gurmad qaran oo ahaa shirqoolkii lagu dilay raxmatullaahi calayhi taliyihii ciidamada haramcad farxaan qaroole inuu ahaa argoosi qabiil inuu ahaa mission ay asaaseen sida gabadhiisaba ay caddaysay generaal garaal si qabyaalada loo dilay sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn xasan daahir aweys oo xiriir hoose la leeyahay Masar saraakiisha aqwaan muslimiinka iyo saraakiisha ciidanka iyo xiriir hoose la leeyahay waana ninka asaga isku xiray asaga iyo Masar iyo mahad salaad isku xiray qorshahani Masar baa diyaarisay waxaa la isbarbar dhigay war ninkani haddaan xilka ka qaadno waa hogaamiye waa dhalinyaro waa taliyo booliis haddana wuxuu haystaa ciidan special forces ah oo la yiraahdo haramcad oo 1500 oo askari ka badan haddii 2000 gaareen oo asaga aaminsan waa ka qatar badan yahay ururka al-shabaab waa gooto dhan magaalada muqdisho haddii aan xilka ka qaadno gadoodo meel qabsado iskama dhicin karno shacabkii iyo dhalinyaradii caseeyaha dhan baa jecel fanax wiilkii fanax oo kiira shaqaalka ahaa miskiinka marka abu muxsin al-masri oo ka tirsan sirdoonka masaarida wuxuu yiri ninkan dawladna aad tababartay dhammaan ciidamada jooga iyo waxa soo socda ka tababarbaday asaga iyo ciidankiisa waxaan daraasaad ku sameeynay muddada aan joogno ee sanadka ah awoodda ninkan ciidan ahaan uu leeyahay iyo ciidanka uu wata awoodday leeyihiin
وانيكا خطرها ugu badan 2 saac ku soo afjaray 2 hours shiishka taatiga dagaal khibrada tababarka geesnimada qof noocaan ah mucjiso ahaa ninkan mucjiso weey qof la dagaalama kara ma jirto ku soo wax kale ku darayaan dadka ogeyn dhacdadii ka dhacday hotel xayaat ee u dambeysay farxaan markuu meesha galay oo arkay soo ogaaday ciidanka meesha ka dagaalamayo inay ahaayeen niman mahad salaad soo diray markuu xaqiiqsaday farxaan iyo mahad islam markuu u sheegay niyow dadka meesha ku jiro sida la soo xaqiijiyay dadka gudaha ku jira ay xaqiijiyeen waa niman reer hebel ah oo cayra oo qaarkood hebel iyo hebel la dhihi karo oo taqaanida xafiiska ay ka socdaan baa kuwa hotel ku jiro sirtaas ayada ah oo hayay farxaan nafsad ahaanteedii waxay ahayd asbaabtu mahad u beegsaday bay ahayd mahad hotelkaas dhibsaday mahad oo hotelkaas inuu suuqa ka soo helo go'aan ku gaaray mahad oo hotelkaas hotel afriik daraadiisii inuu u burburiyo go'aankiisii uu ahaa mahad oo ah nin al-shabaab marka beesha oo dhan waxay ku midaysan tahay oo nimanka reer Haaji Seebaan way u cadaatay arrintan way arkeen ay nafsad ahaantoodii wada hadal baa loo fariistay waa la ismari way wada kala beesha cayr iyo waxa wada fadhiyay beesha reer Haaji Seebaan farxaan wuxuu ka dhigay Soomaali weyn laakiin qabiil beer buu ka tirsan qabiil buu ahaa sama ileen dhigiisi dad baa xigaalo waa lagu kala kacay habar gidir kala hadda loo yeeray nimankii saa waxay taageen anaka farxaan oo nool baa xabnaa darajooyinkiisu wato oo sirkaal oo hadduu ilaahay ku rooy haramacad hogaaminayo ayaa nahay wax kaloo maray habeeraata ma jirtaan ifaan waa lagu kala kacay xaaladda meel adag bay maraysaa laakiin waxaa la dhayaa sabab ah kullu indi fitna jiir waxa yaa sabab ah xasisha dawladdan xasisha sabab ah daraxayda la timid ciyaar weelay la timid barakaabay la timid waxay la timid shabaab xoogaysto oo awood yeesho fasaasta loo geeyo oo qadaxda loo geeyo la fudeeyo ummadii la ciribtiro waa qandaraas dawladda xasan sheekh maxamuud ay qaadatay way ku soo ما شاء الله هذه هرتا anigu nin wax badan wadankan ka qoraa tahay hadalkaagu ma taakiidinaya waxba ku dari maayo anigu daraasaad kala sameeyay waxaan baanta waraystay culamaa diinka ahlu sunna wal jamaa saraakiishii hore bal la dagaalanka khawaarijta muddada ku soo jirtay bal waxaan niri wadankan wax badan baad joogtay waliba rag culamaa magacooda sheegin oo kamid ahaa fayeenkii ururka ahlu sunna hadda waa maanta waa waraystay beejka difaaca qaran markuu soo geliyaa waxaan weydiiyey war waxani dawladdii waxaa la taargad garaysanayaa saraakiishii wax ku oolka qaranka u ahaa oo qaranka ku tabcay wax soo baray nidaamka maanta jiro ee dalka ka jiro iyo inay al-shabaab waa isku milmeen duulaankii lagu qaaday gobollada dhexe ee magaalada ceelbuur ee la weerari rabay oo la qaban rabay waa fashilmay tii meesha la yiraahdo maxay ahayd moqokori iyo maxaas waa soo fashilmay waa tawaanta beledweyne gudoomiye lagu weeraray saraakiisha lagu leeyahay qorshahan yaa ka dambeeyay ninkaasi nin khabiir ahaa jaamacad kaga soo baxay meesha la yiraahdo Yemen Masarna soo maray ku takhasusay afkaartan khawaarijta ee arrimaha diinta ah ilaa doctor ka diyaariyay wuxuu ugu yiri horta dawladda hadda taqaano iyo hadda dawladda arkay jirtay maanta dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab waa hal وانا ما قاعد بحسين ادو قاعد بحسين دم الشباب قرمت غير الشباب ستيت اوف يو اس اي ها دم الشباب بعد ما كان لي هذا نمن كان وحيري تريها والشباب سراكيش والشباب حدنا مبادئا اي كود السميه حسن كظاهرها كان كخيرانيا ايغا خوارجتا oo ah in dhiiga islaamka la banaysto maalkoodii cirdigooda la banaysto umada la takfiiriyay way ka sameeyeen salaad isku soo xirtaan bi socodka isku soo socdaan naagaha isku soo jamaacayaan dhaqankii oo al-shabaab oo meesha taagan isku sii way buuq yaraana waa wataan horta nimanku waa al-shabaab al-shabaab adigu aad ka kala raadinayso ma salaad ahayn al-shabaab faarax abduqaadir aan ahayn al-shabaab buqaari aan ahayn al-shabaab xasan aan ahayn ma jiro dhan waana urur yiraahdo damul jadiid al-ittixaad buu ka soo farcamay islaax buu yimid islaax buu ka farcamay damul jadiid asalka iyo qawaaniinta iyo shuruucda ay ku dhaqmaan iyo shuruucda al-shabaab واسكو
jiifka hurdada dhan walba waa iskaga badbuuday marka horta Soomaaliya wuxuu ugu yiri waxay gashay dambi baa la galay ilaahay baa iyadoo canqaaban oo dhibaataysan oo muddo fadhiday oo wareersan oo meel laga jira aan garanayn baa ilaahay wuxuu u soo diray hogaamiye isla 6 bilood buu wuxuu ku gaarsiiyey samada dadkii dhulwaayada cunayay dhulka Soomaaliyeed oo dadka cunayay oo dalka cunayay oo kala qaybanayay wuxuu ka dhigay dad leh kuwii cadaawad u qaaday halka aan geesiga inoo soo baxay ilaalsan lahayn buu cadowgii aan garab istaagnay oo aan taageernay oo aan garab istaagnay oo aan raacnay ilaahay waa caadile hogaamiyahaas daacadda noo ahaa ee noo shaqaynayay ee qaranka u shaqaynayay markaan ka tagnay ilaahay wuxuu nagu saakayto nagu baxayay oo maanta nooga dhiga abaalmarin fiqiga wasiirka arrimaha gudaha inuu noo noqdo xasan culusow oo 4 sano dalkan khiyaamay oo dhacay oo bilaqaystay oo cunay inuu madaxweyne noo noqdo ma salaad oo geela qalanay inuu noo noqdo waxay ahayd waxa la yiraahdo taliya national intelligence of Somalia abshir bukhari madaxtooyada noo fadhi waxaasoo dhan waxa bambatur ha row oo dhahay insha Allah biidnillahi alkareem mujaahidiintu waxay gacantooda ku cadaabeen ay gacantooda ku direen mujrimiintii hotel sham oo gaalada ahaa ee dawaaqida ahaa ee cadawga ilaahay gacanteena aan ku cadaabnay ku dilnay waxaan baladweyne ku dilnay dawaaqidii cadawga ilaahay oo kamid ahaa Umar Xaashi raxmatullaahi calayhi iyo laqanya iyo rag lahaa ee boqolka ahaa gacanteedaan ku cadaabnay waxayna ka shaqeynayeen shir kiiba maanta diintii ilaahay loo dhiibay waynu gubanaynaa waa gadoomayaa qarankan waa dalkan waa burburayaa waa u dhamaatay taariibtuna cirkay maraysaa sixir bararku waa badnaanayaa amnigu waa kasii darayaa nololima taalo nabadima imaanayso waayo dad takaburay oo ilaahay ka furtaanay waxaan marka bulshada Soomaaliya u sheegay waxaan annaga gacmaha ku samaysanay ilaahay inaan u noqono hal mar meel uga soo wada jeesano dalku dadku waa baaba'aya ciid ma ahan maalin walba qofka qiimaha badan markuu naga dhinto 100 la dilo 50 la dilo maanta wuxuu maray meydkii baladweyne 50 dawladdan waxay tiri jayti hala cuno bixi hala cuno ma fiiro qorshaha socdo bay jayta ma rabaan xilkeena ka qaadaan rabaan haddana oo bushatay qabiilkiisii oo xawaalo isku duuday hub buu helay daqaalo ninka helay hogaamiye qabiil buu noqday kuma digday karaan marka inay dilaan way marka qorshaha ay halka ka qaadi karaan waa inay dilaan waanta gaariga UD-ga loo soo raray bombada oo waxad kale u soo raray marka waxaan leeyahay labadan al-shabaab iyo taliyaha labada aag ee mahad salaad inta Soomaaliya joogo xasan madaxweyne u yahay dadku waa baaba'ayaan annagana maanta aniga gurmad qarni anoo halkaan fadhino oo 80% shacbiga Soomaaliyeed aan ka mid nahay fikirkan diidan yihiin 20ka naga hartana waa naga daba imaan doonaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed u sheego beecadii u dambeysay ee lagu galay ee mahad salaad iyo mahad karatay ay ku galeen balad meesha la yiraahdo balcad ee lagu diray ninka la yiraahdo Farxan Qaroole wuxuu ahaa in laga soo noqdo meesha la yiraahdo Ceelbuur haddaan Ceelbuur la aado beesha dadweynuhu waxay u sheegeen naf iyo maal waxay leeyihiin shirkadda hormuudna in la baabi'in doono naf iyo maal meesha dadweynuhu arkan la baabi'in doono hadda dagaal ka soo gashaan duduble asagoo naftiisa u turayo shirkadiisana u turayo Axmed Nuur Jimcaale lacag 4 milyan ah ayaa la siiyey war iyo groupkaasi 6 milyan markii xamar imaadaan baa la siinaya dagaalkii saas ku soo dhamaaday dagaalkii saas ku soo dhaw cid aan xawaadla shirkad ma leeyihiin hormuud ay haystaan shil ma haystaan barga nacal la qabay booli halkaas taagan yihiin cidna ma yaqaanaan waa dagaalama inta ka dhimanayaan laakiin nimanka dhaqaalaha haysta waa diideen hormuud oo dhulka laga simana malaayiin dollar baa baabaayso aday wuxuu faa'iidaa 100 milyan 200 milyan faa'iida aday ninka hormuud haysto one day internet iyo wax la isku dar marka dalka halkaas soo maraya ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazakallah maya waa mahadsantahay bariga soo laabanayna insha Allah aad baan ku salaamay gudoomiye jazakallah khayr jazaa xasanaad ana soo koobi karnaa la ka siiyo gudoomiyaha guud difaac qaran ayuu ahaa kaas waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliyeed haddii sidaan aan isku fiirsano dalka kan kolba dad u naxama joogo xasan dal kama naxo diin kama naxo culamo kama naxo waayeel kama naxo saraakiil kama naxo xasan sheekh calooshi sawda halka hablmariidkaas wixii uu marin lahaa ayaa u dar haddaba darnad waa isqaad qaadayn dad badan oo annaga naga mid ah oo yani muxuu ahaa qaarkood
aswadayaashii beri dhawey dowladdii ismeed dagaalka kula jiray dowladdii ismeed ee nidaamka lahayd nin baa shalay wuxuu ii weydiiyey swedish buu ahaa waxaade soomaaliya maxaa ku dhacay buu macnaha wuxuu arkay generaal farxaan oo maalmo ka hor baariis joogay seminaar caalami ka qayb galay seminaar caalami ah ka qayb galay ee booliiska adduunka joornaal walba lagu soo qoray wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP iyo Daily Mail dhammaantood ay ku soo wada daabaceen iyo Expressen iyo hadduu ilaahay ku idmahayo bahasha la yiraahdo wargeysyada ka soo baxo qaaradda Yurub oo dhan lagu soo wada sawiray ay ka wasabtay ayuu la yaabay ninkii yar ee da'diga ee generaalka حل الشام بالجرمان حل الدنيا بأي ذنب ومن يرضي لا نسمع بقي يا سيد بيقول صوت ولا تيجي سيدك لا حرم حاجة عيب قالوا يدينا مركز لو عمنا مدحوين أرجع الساعة هي دول كاني قبصري مدحوينها أسأل كيسان اللي قد ليبا وأنا تيوا حبيبي حصل مركون قبل لا يديك وانا ودلوقتي محاضرة حبايب انت جوكتي dad waa la dili jiray macna qof waa dhiman jiray laakiin saraakiil ciidan loo dhigay saraakiil ciidan ah lama dili jiray generaalada lama dili jiray odigii howlgabka ahaayoo galaal ahaa hotel la soo weeraray argagixisyo ay gashay kulintii waa jiray sax marka dowladda xasan sheekh maxamed laba janan oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay ka go'tay ayaa xasan sheekh waqtigiisa ay dhinteen generaal Dagabadan iyo generaal Farxaan Taawale labada ninba ummadda Soomaaliyeed runtii way u way bisla waliba generaal Dagabadan nasiib wanaag asoo dagaalamay ayuu ku dhintay argagixisada asoo la dagaalamayo hotelkii lagu mishiray ee la soo dejiyay ee xasan soo geliyay argagixisada loo geliyay hotel saxafi buu ahaa alaabada Dagabadan يا سوى الدجالماي عيد المقرب والدجالماي أرجع حسب بدل ولا أصل ما شو كل شيء يكون كمان لكن فرحان غير اليوم كي باقي مريحين كي ماشي عالم كودن بيان محاها شريو يعني واصل الديارات بارت الديارات مكي أي يعني من كاميرمان حاجة لا سعودي فرحان لا سعودي كاميرمان كي يعني وحوا يقرأ ميموري ديجيتال أي 6 سفارة أمريكا بوحدة 6 يوحدة بس على قد داوري ما في السنة بمكي لو استوى اللوجيني قفك كل استوى اللوجيني وريو المكي ده مسيب بريرا الله دلي ويوجي وياك وريه سفارة أمريكا كل شقينا يقول لك دلايو يا واللوجيني وكسل الدلاي لما هو يودنا يبقى مغالبا يعني حيالي كاميرا السنة واحد استضيت عن بداية كجرو GPS أو بداية كجرو GPS كجرو أو نحن نحن نسأل ديارات مركي نعمة أما أي بربرتو أما أي بطل نعمة بلاك بوكس وحيلا الجرو أو ديارات حب تالي ونحن نلقوك كيليو قلب نوع أصول كلا كحرنا كاميرا دبيل كاسوتي مرأي انتي ماشي ترين كاميرا دي بيصوت نعمة ويشيلين ميل بيجليين وأنا صوصاري فرحان اللي بسوله كانوا أستاذ مايو وقعمها كتاجايو وصور جايو باوكي سوسونه هرغونايو بمكي الله وطلعوه في ويلي بناجعك ويلا أمر بمكة ويلك حد حاجة يسوق جاتي حتى إن شاء الله تعالى ونصور مستري دونا قرشة الجيران أو إلا خارجي لهم ويلكي السجعها ويلكي برضو كلفتي أي وعلى الرأي اللي خارجي ولا قلبه حرمت اللي بتسويد مع الثانين ولبحه أو دينو الربا أخين تسمع ما وعويه ويلكين ولبحه أو خارجي ولا صارت ما هي تحت وعسكري واي أمر بالنسية يا سيئ عسكري يا سبحان سوى جيرين إن الدين ولا بتبادي ولا ورا السماء التنين كور وإن حب لنا
وإن ور لها حق وإن لها يا أمري يا كو أمري أكثر فرحانين الجشو يا كو أمري خير حاجة السنة وعم شيء أسكري صهاد حبسي كوجيلو مرات سنة وحورها إنه خارجيو وهبين مدو قد كفيدو إنه أصولا با حدي أسكري أسل الدلنا حقي فرحان ترولي واغا كريهي حقتي فرحان ترولي واغا نباتي أسكري أسحق ضمبو هيا يان دل ولد الدلن لو ريستو يا كسو الدري يا عرقا سوى بابوي يا أمريكا كسي صوت قدشي نهايتاي وعصفوت جيلينيا ورهو يجارسية ورهو غير حاجة سنوات يجارسية دالك دولت كمان جبتو ودنك الصومالي دولت كمان جبتو دولت كمان جبتو ودنك الصومالي أما كالي مدى سيدة غير حاجة سنوات وحلايا مال والقور ما عنده قصر وحلايا ورمين كان ما أتصلاني لا نمشي ولا بحر معبرته إنك وكل جريسية يجيدوا كحر لا أشياء اللي غيرها أسكالي جاها وحاول روائل ولا بحق الديو الخارجية ورديدية يروحوك شيء إنكاس وحان سجل لها إنه سحبسي كفكنين أمسهم إنه يوديو حبسي أمسهم أي أكتها الدولة الصومالية أمسهم تسهلو ديو إلا أنا كدولة ماشي دولة مطالع أمسهم تسهيسو إلى ما رنتان حبوريس لغسميو أسكريان وحلايا هذا معنا حتى حداد بمكتب يعني وحوى يدب على قاي لكن واري بيصير ورا كهربي ومضى له ولا من يسار أسباب ولا كل بطل كنت سكشة عندي كو أمرتي فرحان ديل كيسي أو صد الكتلي أنت على من الكهر ورا كهربي شك دم بيفوتهاي بدبالي فوتهاي ومضى بدبالي فوتهاي شرف بيفوتهاي مالك قيام إلهي هذه كل واحد كريشان بالليل هنا إلهي ليش الدورة هو قيسته لكن هذه هو قصاصه وعمل لي هذا إلهي سبحانه وتعالى غفور رحيم وغفور رحيم بيفهم أسكري أمر للسيري باتا أمر قالوا سيري دل قالوا يروالك هذا أوكتن مرك ويلكا من كان دلكاس قيستي وحلايا هاي مهر بحور ما إنه كلبحه يا مهر وحورها إنه حبسي كلامها هري من الخارجية كدم الجود كل ذو الرواي أرنتا صعيدة على جد دكتورنا نقول هاي إن شاء الله تعالى مضمون سنتين حسن ده يوصل على هاي أنا أقول كذا أنا شباب دري أنا نكوجا في شباب الله دري إنه لماذا إلا الدري هاي حقنا هنا توي شو كتاسي ست حقنا هنا كلها هاي محيا لي ويل كذا أنا شباب دري أرجع حساب رئيسي ninkii adeerkiisa ahaayo walaasha qabay buu la socday Abdullaahi yara ninkii la bintaas labaatan ay $3 milyan madaxiisa la saaray ayuu la socday eedadiis xanuunsaneed baa yani muxuu inuu soo daaway ahaan baan meesha u joogaa baa tiri xaq kama jiraan wiilkaan shabaab buu ahaa afkaarta ayuu ku shaqaynaya waa ninka kala wareegay walaayada ayuu ahaa wada Soomaaliya waxa uu geystay waa isoo tahay marka wiilkaan inuu dhimanayo waa looga laakiin oo hintaad way khaldaneed baan kulana way khaldaneed marka والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.